waxaan soo gudbinaynaa maanta vocabularyst ereyga privilege waxa weeye mudnaan gaar ah leh. qofka mudnaan gaar ah la siiyo dadka kale laga saaro. tusaale ahaan inaan iraahno you will enjoy certain privileged if you join our school as a teacher. haddaa iskuulkeena imaadid macalin ahaan mudnaan gaar ayaa yeelan doontaa, mushaarkoo lagu kordhiyo, maalmo fasax oo heshid. qofkii in la yirahdo okay you don't have any rights or privileged ma lihid wax mudnaan ah iyo xuquuq aan leedahay ma jirto. inaan iraahdo staying with you for a week 7 beri inaan kula joogo it was a privilege to me, waxay ii ahayd mudnaan gaar ayay ii lahayd. emotion waa dareenku wuxuu noqon karaa mid farxad, mid muruga ayuu noqon karaa. in la yirahdo he's controlling his emotion, dareenkiisa ayuu celinayaa because he had the death of his father, dhimashada aabiis ayuu maqlay. he's attempting to control his emotion, dareenkiisa ayuu xajinayaa. hilarious waa very funny, waa wax lagu qoslo maad leh. inaan iraan the comedian is hilarious man, hilarious guy. the movie we watched last night was hilarious. filimka xalay daawan wuxuu ahaa mid maad oo qosol badan. advocate waa waxa u ololay sida la yiraahdaa. tusaale ahaan qofka inaad maxkamadaha ku difaacdid dadka xuquuqda dumarka, dadka laga tiri badan yahay, deegaanka, dadku waxaas u ololeeya ayaa la yiraahdaa. qofka inuu ku yiraahdo tusaale ahaan I'm advocating for quality and affordable health care, waxaan u ololeynayaa wax in la helo caafimaad tayadiisa sareyso, qiimuhana ay jaban yihiin oo qof kasta uu awoodo. uplift waa kor u qaadid. in la yiraahdo the government should uplift the living standard of the lower class citizen, dadka muwaadiniinta ah ee dabaqada hoose dowladdu waa kor noloshooda inay usoo qaado. to uplift education standard, health standard, caafimaadka, waxbarashada in kor loo qaado. clarity waa state of being clear, to make it clear way inaa wixii waadax ka dhigtid oo cadeysid. in lagu yirahdo okay there was a lack of clarity in your written statement, qoraalka soo gudbisay madmadow ayaa ku jira, ma cadeen, wax cad ma ahan. etiquette waxa weeye anshax, edeb marka la leeyahay. tusaale ahaan bulshada in la yirahdo social etiquette, dhaqan ahaan bulshada waxaan ayaan u leena. qofka weyn markuu yimaado qofka yar inuu kursiga oga kaco, that's a social etiquette. waxaa kaloo jiri kara wax la yirahdo work etiquette, shaqado anshax u yaala jiro. in la yirahdo tusaale ahaan shaqada markaad soo gashid telefoonka ma qabanaysid, waa shuruudaha noo yaala anshax aan leenahay. so this is a set of rules, waa shuruuc meel la dhigtay bulsho ahaan iyo urur ahaan lagu dhaqmo.